بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حجاب وآيات الله سبحانه وتعالى تاسو كسو دكتي حبيبكينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهن قضب أي شياطين دكسدين ما أهن وحلقا كانت قلبيتك ما أهن قضب ما ويل أبورا اللوين سبحانه وتعالى قبلها محسنين تاهو شرفي سيدو كالانت حبيبكينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابتي سيوحو كويري أصحابتي ذي كفو قادة تضودن بيقولوا عذاب مطيستو أصحابتو حيرين رسولك إلهي ومحيين نبي قوحو الإلهي وحلو شرقيالو نفل ديردركي ذي إلهي حرميالي سحرك xoolaha yatiinto la cuno ribada maalinta muslimni gaal ay dagaaltamayaan qofka muslimka intuu soo orday xabada gadaal kaaga dhacdo qofkaasi waa ahlul naar mid toddobaad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri gabdhaha muxsiniinta oo xijaaban oo dhowrsan oo lagu been abuuranayo taasna waxay ka mid tahay inta lagu cadaab mutaysto meeshas waxaan ka fahmaynaa in diinta islaamka nicisiis oo ina sharaftay diinta islaamku waa diin cisi sharaf ilaahay siiyay mana u baahana in wax lagu daro mana u baahana in wax laga celiyo sidaas darteeda gaaladu waxay isku dayeen in badan inay xijaabka naga dhigaan meelo badan ay nagala dagaaltameen annaga waxaan nahay dad ilaahay aqli siiyay waxna fahmi kar waxna kala saaran kar alxamdulillah ala nicmatul islaam wal iimaan ugu dambeyn walaashay waxaan ku leeyahay ku faan diintaada ku dadaal darajada ilaahay xiro xijaabka isxakamay naftaada iska casil shayaadiinta warkooda xasilooni gelin nafsadaada